أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ومانسنتها الشيخ برهان. هذا وحان ويرايا قدوميها قبن قابسك هاند بقر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم دمانتين. waxaan u mahadcelinayaa walaashii Sucaad. Saacad wasiir soo dhawow gacmo furan soo dhawow inoo tahay sharaf inaan noo timaado halkan aad warbixin nooga sido dalkii iyo dawladda cusbeed oo Puntland ka hana qaaday. insha Allah kulley mataqaanaa dadku wax badan bay iska weydiinayaan arrimaha caafimaadka oo laf dhabar u ah bulshada Puntland ay mataqaanaa kaga liidato deegaano badan oo Soomaaliya arrimahaas gaar ma soo wareysanayna insha Allah hadda kulley waa soo dhaweyn iyo warbixintaadaan dhageysano insha Allah soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynayaa magaca jaaliyadda guud ahaan iyo bahda caafimaadka soo dhawow aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka soo qayb galay insha Allah mahadsantiin. Assalaamu calaykum. walaalayaal haddana waxaa u yeerayaa injineer maxamed siciid dirir kusoo dhawo injineer. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد السلام يا دمان مرتي شرفتا وجوه ري وزيركو عافماتك جامع حسن جامع فارح حسن دمان كسوق بقلياشة ماركتي آدبان الدين سلام يا سلامك بعد وزير وحنو كلنا هيسودو kusoo dhawow waddanka Finland iyo jaaliyadda reer Puntland aad iyo aad bay sharaf noogu tahay imaatinka aadna soo booqatay anigoo og inaad hawlo muhiim oo aad muhiim ugu ah Soomaaliya gaar ahaan Puntland inaad oo shaqo inaan halkaan u timi waa markii ugu horeysay oo intaan xasuusto wasiir Puntland ka socda oo shaqo muhiim u socda oo Finland yimaado aad iyo aad baan maaragtay arrintaas ugu faraxsanahay inaad ahaatid wasiirkii ugu horeeyay oo arrintaas daafuray annana waa ku soo dhaweynaynaa qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa wasiir haddii aan wax yar ku siiyo wax yar oo maaragtay warbixin dadkan Finland degan Soomaalida gaar ahaan reer Puntland dadkan Soomaalida halkan degan waxaan anigu ka mid ahay dadkii ugu horeeyay waddankan yimi 1990kii bishii 7 30 sano bay ku sii dhowdahay adigu dad ilaa 25 kuna baa hadda lagu qiyaasaa Soomaaliya inay degan tahay Finland markii la fiiriyo Yurub annagu waxaanu isku tirinaa dalalka dadka maaragtay Yurub ka faa'iiday ama maaragtay ugu horumarsan inaanu nahay haddaan reer Finland nahay waxaa weeye maaragtay ilaa 500 ama ilaa 400 oo dhakhtar ayaa ka soo baxaya jaamacadaha Yurub 10 sano oo soo socda haddana ilaa almost 20 dhakhtar ilaa 30 dhakhtar baanu leenahay oo Soomaalida ah marka horumarkaas weyn engineers maaragtay xirfadlayaal kala duwan oo badan marka reer Finland ahaan saasaan nahay reer Puntland dadka ugu horeeya xagga waxbarashada
iyo aqoontaba baa lagu tiriyaa dalkan. marka insha allah wasiir waxaanu anagu diyaar u nahay dalkii wixii horumara iyo wixii maaragtay taakulo ah inaanu gacan ka geysano. waa soo dhaweyneynaa dowladdiina cusub oo madaxweyne siciid cabdullaahi deni uu madaxweynaha u yahay, adiguna wasiirka caafimaadka ka tahay. laba wasaaradood ayaanu waxaanu codsan lahayn inay jaaliyadda puntland ee halkan degan in aan wada shaqayn aanu yeelano, iyadoo wax walba ay muhiim inoo tahay, laakiin wasaaradda caafimaadka oo kow iyo wasaaradda waxbarashada. anigu waxaan kasoo shaqeeyey muddo 1 sana baan waxaan kasoo shaqeeyey puntland barnaamijkan bahalkii IOM-ta oo bahalkii Simsom la dhihi jiray ayaan waagaa ku baxay. waan ogahay baahida wadankii taalla oo bahalkii uu dadkii iyo dalkii u baahan yihiin. marka wasiir waa ku soo dhaweyneynaa mar labaad iyo mar saddexaad. hadda wixii bahalkii barnaamija oo aad noola timina diyaar baan u nahay. soo dhawow baan leenahay, soo dhawow. inta bahalkii kolley maanta waa soo dhaweyn. wixii kale oo maaragtay in details oo hoosena waa iska wareysan doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mahadsantahay engineer. walaal haddana waxaa u yeerayaa guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee finland guddoomiye axmed xirsi cali. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وين السلامي حمنا شرفت له وكسو قيب قلي السوء ما ذكرنا إنه كسو دوين إنه تتورك وسير كنا عافماتك فرح جامع حسن ويمي طناها أمضى الصوماليات خاصة بلدان ماشي تنويمي إنه كسي شق kulamo uu ku qaato oo hawlahana wax ka qabto. shafar shaqo uu ku yimi aad baan uga mahadcelinaynaa maadaama uu priority-ga na siiyay meesha ugu horeysa oo wadamada reer galbeedka uu safar shaqo uu ugu yimaado uu ka dhigay Finland si official ah. taasi waxay cadeynaysaa muhiimadda Finland ay leedahay ay u leedahay macnaha Soomaaliya iyo waxqabadkay qabato aan yaraano laakiin se waxqabadkeena iyo howlaha Puntland laga wado ma yara ama Soomaali laga wado. waxaana waxa soo saaray cadaankaas ma garanayn Puntland ma aqoon dadka soo saaray waa adinka dadkii baray oo waxaas ka soo shaqeeyay. waxaan hadaynu inagu ka shaqeyno dadka barin oo macnaha hawshaas ka qaban ba aysan qabsoonteen. taasna waxaan mar labaad baan idinka mahadcelinayaa dadkaas reer Puntland dadkeena reer Puntland oo aad ugu heelan dalkiina wax u qabtaan markii halkan ay joogaan iyaguna nafsadooda ay wax u qabsadaan. taas haddii aan halkaas ku dhaafo jaaliyadda warbixinteeda waxqabadkeeda hadda ay ka wado halkan haddii aan 2 ama 3 ka soo qaato. halkan waxaan ka wadnaa barnaamij aan caruurta ajaanibta ku caawino. Soomaali kaliya ma aha laakiin dhammaan wixii ajaanib ah oo dugsiyada hoose dhexe dhigta oo u baahan waxbarashada caawintooda maadaama aysan wadan kale ay joogaan aysan dhaqan ahayn. project noocaas ah ka wadnaa waxaanu la shaqeynaa iskoolo badan. iskooladaas oo hadda dadka macallimiinta caruurta yar yar caawiyo oo la shaqeeya ay ka mid tahay Sucaad oo dhinac taagan oo ay ka mid tahay mashruucaas waan wadnaa. waxaan kale oo Soomaaliyana aanu ka wadnaa Soomaali farkasto ay ka wadaan oo qayb ka nahay mashruuca caafimaadka oo hooyada iyo dhallaanka kaas oo aynu garaweyna aynu ku kulanay annagoo meeshaas aynu isku aragnay. aad baan kaaga mahadcelinayaa garowe sida aad noo qaabishay oo u ogolaatay inaan kula kulanno. aad baan kaaga mahadcelinayaa. jaaliyadda waxqabadkeeda dee waad arkaysaa ummadii macnaha halkan magaca jaaliyadda lagu qabtay meesha tan aan iskugu nimi oo intaas oo dad isku keentay iyo hadda ka badan ay qabato waa waxqabadka halkaas uu ka muuqdaa. taas haddii aan intaas ku dhaafo marlabaad waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada oo xafladan quruxda badan inuu inoo dhacdo
inuu kasoo shaqeeyo oo ugu horeeyo halad boqor iyo sucaad iyo dhammaan maamooyinkay kasoo qayb qaatay sacdiyo xaliimo dhammaan xasno saynab dhammaan aad baan ugu mahadcelinayaa hawlka madaale weli waa hogadii hawsha iyo shaqadeena weli tasaasaan u wadaynaa waxaana aad u soo dhaweynaya anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda wasiirka jaamaca faarax oo inoo yimi aad baad u mahadsantahay so welcome to Finland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan u wacaynaa gudoomiyaha Soomaali Verkosto Cabdiqaadir Maxamed Cabdi ها mahadsanid sucaad way ku saxsaneed horta hadalkii intii la dhihi lahaa intii badan waa la yiri marka inaynu iska sii wadano barnaamijkeena ayaa muhiim ahay waxaan aniguna marka aan asxaabteedii hore iga horeysay ee hadalka qaadatay aan aniguna ku darsanayaa wasiir soo dhawow waana ku faraxsanahay inaad noo timi waxaanu insha allah haddii ilaahay yidhaahdo isku dayi doonaa howlaha aad halkan ku timi wixii aanu kaa caawin karno inaanu kuu sahlo inta ka bacdi waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo Soomaaliya Verkosto luqadda Finishka lagu leeyahay laakiin Finnish Somali Network waxay tahay baan rabaa in yar inaan ku brief gareeyo inkastoo markii aynu isku aragnay wasaaradda garowe joognayna aanu ku brief gareynay Finnish Somali Network oo Puntland Society-na ay xubin ka tahay waa dallad midaysa ururada hawlaha horumarinta ka shaqeeya ee Finland ama ha ahaadeen Soomaali ama ha ahaadaan Finnish ha ahaadaan waxay ka kooban yihiin baan u maleynayaa hadda 28 urur oo intooda badan ay tahay Soomaali waxaa ku jirta ilaa 5 urur oo waaweyn oo Finnish ah oo ay ka mid tahay Finnish Church Aid Solidarity Doctors Social Responsibility urur la yiraahdo Safe Children qaybtooda chapterkooda Finland adu ururadaas waaweyn oo Finnish ayaa ka mid ah ururada kale waa ururo inta badan ay Soomaalidu ay aasaastay ururadaasi waxay ka wadaan Puntland oo kaliya ma aha dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan ilaa iyo Gibiley ilaa iyo Afmadow mashaariic yar yar oo aan aad u fara badnayn laakiin runtii aad waxtar u leh oo kooban oo ay hadda adigu aad ka ogtahay wasaaradda kan hoos yimaada ee hiil hooyo ee caafimaadka oo ay ku jiraan ilaa 3 jaamacadood 2 jaamacadood Finland 3 jaamacadood oo mataqaana Soomaaliya iyo ilaa 7 organization oo qaarna halkan ay joogan qaarna halka ay joogan marka firkastadu ama network waxa uu kala wadaa hadii aan Puntland xageeda u soo noqdo mashruuc isaguna environmentiga ah oo ka socda isaguna gaalkacayo cadaado buuhoodle guriceel cadaado afmadow ceelcadde ilaa ay ku midaysan yihiin isagana ay ku midaysan yihiin ilaa iyo 7 urur oo kala duwan ay ku midaysan yihiin marka kullay biidnillaahi alkariim farkastada iyo networka ballan baynu leenahay insha Allah hadii la maalinta talaadada wixii warbixinay dheerada maalintaas ayaanu insha Allah ku siin doonaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay mashaariicda aan wadnaa ama caafimaad ka ahaadeen ama kuwa kale ee environmentiga ah ee aan Puntland ka wadno maadaama aad wasiir dawladda ka tirsan tahay insha Allah biidnillaahi alkariim inaynu iska kaashan doono aynuna anagu waanu bilownay aad sii balaarin doontaan khaasatan mashruucan hadda caafimaadka oo aan wadno oo aan doonayno inaanu dadka health professionalska aan ku tababaro in idinkuna xaqiina xagga publica iyo xagga organizationada kale ee mataqaana non governmentalka intaba aad uga raadin doontaan inaynu scale up ku sameeyno oo aynu sii balaarin mashaariicda si fiican aan uga fadhino insha Allah hadii la aad baad u mahadsantahay soo dhawow mahadsantahay Cabdiqaadir haddana waxaa u yeerayaa Marwo Sacdiye Maxamuud oo ka mid ah qabanqaabiyaasha jaaliyadda soo dhawow Marwo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتضى شرفت له ووزيرك وهريو مركو هو سوا سلامتين سلام كدب وحن هالكان ما أنت وربنا نمسو استاجن وهي جالية قبل قابياش إذا وكجرا مركا
hadda hadal badan meeshaan hadda igama furna inaan salaamay iyo inaan soo dhaweeyo ayaan usoo istaagay oo halkan hadal badan igama furna wasiirkana insha Allah soo dhawo wasiir aadan ugu faraxsanahay adoo wasiir ah haddana dawladii Puntland ka mid ah farxad iiga weyn maanta ma jirto inaad soo booqato oo halkaan aad ku soo dhawaato jaaliyadan Puntland ama jaaliyadaha Soomaalida wadankan ku nool waa dad aad wadani u ah wadankooda jecel qof kasta oo Soomaaliya wasiir ah ee wadanka ka yimaada dawladda ku meel gaarka ama federaalka ka socdo ama gobolada ama maamulada ka socdaan aad ba ay u jecel yihiin ay u xiiseeyaan aad baan ku xiiseenaynaa in halkan ku soo dhawaatid wasaaradda caafimaadka in aad dawladan wadada caafimaadka wadankan Finland ku horumarsan waxaan rajaynayaa inay barnaamijkaada aad wadatid uu ku hurgalo uu hagaago ayaan rajaynayaa walaalkay haddaad si fiican ugala sii tashato ninkaas hadeer mashruuca Hiil Hooyo aad isagana nagala qabtay dadkii markii bilaabayeen baan kamid ahaayo markii uu nala bilaabayay abuu nala qaban qaabinayay marka wasiir ku soo dhawow dad isjecel ayaa jooga wadankan Finland oo Soomaali ah kulay waad naga wargeyn doontaa oo anigu wadankii muddo dheer baa igu dambeysay telefishinadaasi waxa aan naga daawanaa hana loo dadaalo caruurta iyo hooyada meel kasto oo aad tagtid maadaama aad dad mas'uul ka tahay oo maamul la shaqeyso waxaan ka codsanayaa gaar ahaan aniga in hooyada iyo caruurteeda aad loo daryeelo wadankan wuxuu ku horumaray hooyo iyo caruurteeda lagala hadli karo waxa soo sadeexay eeyga magaranaysa marka annakana hooyadii ayaa wadankii aad loo ciribtirayay caruurta gaajo iyo caafimaad darro marka soo dhawow waxaan jeclahay in dawladdan Finland wixii awood ah ay hayso ay kala garab qaban doonto walaalkeena si fiican u sii kaasho wixii iska barnaamijkaada ana waxa waaye gudoomiyaha noo jooga oo kula sii dhameyn doona iyo walaalkaas oo Finland aad ula shaqeeya xagga caafimaadka Soomaaliya dhan buu la shaqeeyaa maamul kasta oo jooga waa ku mahadsan yahay sida uu caawiyo Soomaalidu dawladdan isaga ugu dhaxeeyo waana urur weyn uu ka shaqeeyaa walaalkay ما شاء الله دad kan ka soo qayb galay wasiirka soo dhaweeyna aad u mahadsantiin inta waa ka badanahay xogaa tabartii intaan maaragtay noqotay dadkii waa fasax qaateen marka waan jeclay inaan cili dhulka qarino ya marka soo dhawo waan mahadsantiin dad ka soo qayb galay meeshaan ku soo dhawo waa mahadsantahay Marwo Saadiyo walaalayaal haddana waxaan u yeerayaa wasiirka caafimaadka ee Puntland wasiir Dr. Jaamac Faarax Xasan soo dhawaad marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland iyo jaaliyadda Puntland wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo akhyaartii soo abaabushay xafladan quruxda badan aynu maanta u qabanay inaad soo dhaweysaan iyo inaan isku wareysano labadaba aad baan rabaa runtii inaan u mahad celiyo dadka jaaliyadda Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed ba ku dhaqan wadankan Finland waad mahadsantihiin wadankii runtii anigu hadda 10 maalmood baan ka sokeeyaa dabcan inkastoo aan ahay wasiirka caafimaadka haddana halkan aniga ku metelaya xukuumadda Puntland maanta marka waxaan jecelahay si uu kooban inaan warbixin guud ahaaneed oo aan just ahayn caafimaadka inaan wadankii idinka siiyo dhulkii guud ahaan waa lagu fiicnaa xagga abaaraha oo runtii aad u xumaa markii hore oo dadku aad u baqayeen alxamdulillaah rabbil caalamiin roobkii waa da'ay dhulku waa fiicnaa markii aan ka imi roobab badanna way iga dambeeyeen oo khasaare geystay oo khasaare nafeed iyo kuwa maalba geystay wixii ku dhintay ilaahay ha u naxariisto kulli dabcan de raxmaadku inta uu dilay waxa ka badan inta uu badbaadinayo la'aantiis aan la arkeen roobkaasi runtii roob fara badan bay ahaayeen inagu dabcan xilliga abaarahana dhibaatooyin baa lagu qabaayo waa dhibaatooyin xilliga roobka laftoodana dhibaatooyin baa dadka soo food saara maantadaas waxaa warbixinta lagu soo siinayay in shubano lagu arkay meelo ay ka mid yihiin magaalada Garowe qaybtan bariga oo lalahaa waxa isku darsamay magaalada seawage-kii iyo daadadkii iyo baraagihii laga cabayay wixii baa isku haysmay taasina waxay keentay in
ay shubano ka dhacaan taleex area gobolka soo lafteeda shubano iyo waxbaa laga soo sheegayay xilligan oo kale waa xilliyada shubanada la iska filo oo wasaaradda caafimaadkuna ay ka tahay standby ay ka tahay sidii ay shubanada uga jawaabi lahayd kolley wasaaraddiina way og tahay wixii ay ugu tala gasheen insha allah way ka qaban doontaa haddii lahaydno taasi waa dhinaca abaaraha iyo roobabka alxamdulillah waa la fiicnaa dhinaca nabadgelyada guud ahaan nabadgelyadu waa iska fiicnayd dabcan way jiraan challengeyo ama caqabado xagga nabadgelyada oo hadday ahaan lahayd xagga xuduudaha iyo hadday ahaan lahayd xagga gudahaba way iska jiraan caqabado nabadgelyo darro oo xilligan puntland haysta wixii faahfaahina hadda waa iska wareysan doonaa caqabadahaas laakiin way jiraan guud ahaanse wax hadda alarmigu yeelo oo aan idinka sheego nabadgelyo darro ma jirin taasay ahayd marka loo yimaado xagga xukuumadda dabcan xukuumaddana hadda waa cusub tahay saad u ogtihiin waxay la tahay 3 bilood iyo 22 maalmood ayay jirtaa maanta xukuumaddaasi waddankeena dhaqan baa iska jiro oo xukuumaduhu marka ay waqtigu kasii dhammaanayo sanadka dambe oo dhan wax badan lama qabtee doorasho iyo waxaa la iska galaa howlo fara badan hadhowto waxaa meesha ka baxa systemkii iyo waxqabadkii iyo magaranaysa focusku wuu ka leexdaa dowladda dambe markaa waxay timaadaa inta badan meel aada u kala daadsan runtii oo u baahan in la isu soo ururiyo bilaha ugu horeeya marka waxay ku qaadataa dowladda cusub inay waxaa isku soo ururiso barorta waxay xukunto meesha lasugu keeno hawshaas runtii hawshii ugu badneed ee bilihii ugu horreysay dowladda qabsatay ka mid ahayd inay isu ururiso nidaamkii dawliga ahaa oo dib u hagaajiso oo magaranaysa xafiisadii iyo hay-adihii dowladda dib loo habeeyo hawshaa waa la qabtay alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda dowladdu si fiican bay isugu duba dhacday waxaa la ansixiyey xukuumadda waxaa la ansixiyey 17 February waxaa kaloo la ansixiyey oo xukuumadda lala ansixiyey ajandihii xukuumadda oo uu ku ololeynayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna la ansixiyey xukuumadda marka ajandaha waxaa ugu horeeyay oo number 1 ahaa number 2 ahaa number 3 ahaa waa amniga ayaa ugu horeeyay amniguna sida aan sheegay runtii wuxuu challenge badan baa haysta Puntland xagga amniga amnigaasi marka wuxuu kuula gelayaa amnigu arrimo dhaqaale oo waxa weeye haddaan dhaqaale haysan way adag tahay inaad amniga si fiican u sugto oo dhaqaalahana xoogga la saaray waxa xoogga la saaraya oo haddana la saaray in dakhliga kor loo qaado cashuuraha laga ururiyo Puntland gudaheeda in kor loo qaado oo musuqmaasuqa la yareeyo taasna wasaaradda maaliyadda ayaa runtii ayaamahan aad uga shaqeynaysay dakhliga kor waa loo qaaday waxaana laga filayaa in aad kor loogu sii qaado meeshii laga rabay weli ma gaadhin meel aynu hananno baahiyaha aynu qabno ee adeega bulshada ma gaadhin heer aynu kaga maaranno waxyaalaha hadda maanta halkani keenay oo ah inaynu dee hay-adaha ama wadamada shisheeyaha aynu wax weydiisano insha allah waa la gaari doonaa laakiin weli ma dhowa waxaa kale oo uu kuula gelayaa amnigu wuxuu kuula gelayaa arrimo siyaasadeed buu kuula gelayaa waddanka siyaasadda guud haddaadan qayb ka ahayn oo hagaajinta waddanka siyaasadda guud aan qayb ka ahayn amnigaagu isna ma xasilayo haddaan galmudugoo dhinacaaga ahay ayaan xasiloonayn adna amnigaagu ma xasilayo marka waa inaad ka shaqaysaa siyaasadda guud ee waddanka oo Puntland ay runtii hormuud ka ahaan jirtay haddana ka tahay in siyaasadda guud ee Puntland siyaasadda guud ee dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya laga shaqeeyo si inana amnigeenu u hagaago deriskeennana amnigiisu u hagaago taas muhiimadda ay u leedahay dowladda haddeerto waxaa ka marxaati kacaya isugu yeedhidii uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu isugu yeedhay dowladda federaalka iyo maamulada ka ah xubnaha ka ah dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka oo isugu yeedhay ujeedada laga lahaana waxay ahayd runtii in nidaam lagu wada shaqeeyo halkaas uu ka dhasho oo la isla fahansan yahay dabcan waxaad la socotaan in dastuurka Soomaaliya uu yahay federaal oo dastuur uu yahay la isla qaatay federaalkaasi macnaheedu waxa weeye inay dowladda federaalka ay xubno ka yihiin dowlado madaxweynayaashooda leh iyo baarlamaankooda leh ujeedada loo sameeyayna dabcan waa iska garan kartaan waa duruufo ay keentay civil warkii ama dagaalkii sokeeye ee 91 biloobmay duruufihii laga dhaxlay ayaa waxay keentay in aynu samaysano nidaam federaal ah oo
faa'iidooyinka markaa loo arkayo federaalkaasi inuu keenayo haddana loo arka ay tahay in qofka Soomaaliyeed uu adeegii uu u baahnaa ka helo meel u dhow oo magaalooyinka u dhow in adeegiisa ka helo ta kalena ay tahay in dawladdu hadday burburto oo dawladdu Soomaaliya ay federaalkii burburto sidii 91kii inaan lagu kala yaacine ay wax kala haraan waad aragteen guryaha la dhisayo albaabad badan baa la kala dambaysiyaa si dab hadduu ka kaco uu meel dabkaasi uu ku koobnaado oo aan meelaha kale u fiilin saas oo kale hadday waxaad imagine garaysaa waxaad qiyaastaan 91kii haddaynu federaal ahaan lahayn oo Puntland la jiri lahayd tana jiri lahayd dawladda dhexe markay burburto waxba inoo soo hari lahaa laakiin markay dawladdii tahay central hal keliya ta meeshana burburtay dee wixii inagu dhacay waad fahansantihiin taas ayaa horta ujeedada ugu weyn laga lahaa in wax kala haraan dadkuna adeega ay meel soke ka helaan ayaa ujeedada laga lahaa federaalku ay tahay federaalku runtii dee waa wax Soomaalida ku cusub oo u baahan muddo in lala qabsado waxaad moodaa marka in wasiiradii ama xukuumadihii federaalka oo kale ee dawladda federaalka hadda jirta qofka marka wasiir loo magacaabo mentally wuxuu u dhaqmayaa sidii waagii xukuumaddii federaalka ee xukuumaddii centralizedka ay ahayd sidii uu rabaa inuu dhaqmo marka time bay inagu qaadanaysaa inaynu la qabsano nidaamka federaalka nidaamka marka dastuurka federaalka marka waxaad la socotaan dastuurka federaalka inuu weli qabyo yahay oo aan wax badan ay ka maqan yihiin nidaam ahaan iyo dastuur ahaan wuu qoran yahay qalfoof ahaan wuu samaysan yahay laakiin waxa ka maqan waxa weeye wixii hilibkii ama wixii dastuurka wixii aynu wax ku qaybsan lahayn sidii maamul dawladaha ka ah xubnaha iyo federaalka ay wada shaqayn lahaayeen sidii loo sheer garayn lahaa resourceska banaanka inooga yimaada sidii loo sheer garayn lahaa resourceska dalka gudihiisa ka soo baxa sidii loo wada shaqayn lahaa sida cashuuraha loo ururin lahaa cashuurta federaalka qofkeebaa ururinaya cashuurta maamulka dawladda goboleedkeebaa ururinaya waxaasoo dhan wax lagu heshiiyey oo meel la isla dhigay ma aha taas intaan la gaadhin aragtida dawladda Puntland waxay ahayd intaan taa la gaadhin oo aan la gaadhin in lagu heshiiyo qodobadaas oo dhan tallaabo kasta oo la qaadayo inay noqoto tallaabo heshiis lagu yahay oo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay heshiis ku yihiin wax kastoo masiiriya oo la qaadayo maadaama dastuurkii weli qabyo yahay qodobka weeye qodobka runtii lagu kala aragti duwanaaday oo si kala duwan loo arkay dawladda Puntlandna ay caddahay mowqifkeeda ay tahay inta lagu heshiinayo dastuurka oo Soomaalidu ay ku heshiinayso sidii ay wax u qaybsan lahayd iyo sidii ay wada noolaan lahayd tallaabo kasta oo la qaadayo in laga wada tashado halkaas aad moodaa inaan isku sii loo arag laga sii hadhi maayo waa la sii wadayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo kulli Soomaali baa leeyahay laba kala tagayay in mar uun haddii Ilaahay idmo si fiican runtii loo heshiiyo haddii Ilaahay idmo marka aan ku soo laabto xagga caafimaadka dabcan wax qabadka ama ajandahaas madaxweynuhu soo bandhigay ee 17 February la ansixiyay wuxuu ahaa istiraatiijiyad guud oo wax kasta taabanaysa qaybta caafimaadka markaan u soo noqdo Puntland caafimaadka waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc primary health waxa caafimaadka asaasiga ah iyo caafimaadka labaad ama isbitaalada waaweyn sida inuu nagu naqaano caafimaadka asaasiga ah waxa weeye MCH-yada iyo talaalada iyo waxyaalaha noocaas oo kale ayaa la yiraahdaa caafimaadka asaasiga ama primary health care primary health care marka si kastaba dhaliil ha u yeesho si kastaba qabyo ha u ahaado laakiin uu shaqeeyaa oo meel kasta oo Puntland ka mid ah ama Puntland ee gacanteeda ku jiro ay ka taliso waxa ku yaala MCH service bixiya ilaa min gaalkacyo ilaa iyo meesha la yiraahdo bareeda iyo caloola min buuhoodla ilaa iyo eel meel kasta waxa ku yaala MCH dumarka uur kale ama dumarka caruurta wata ay tagaan oo adeeg loogu qabto dabcan ka fiilmayno inuu sida Finland oo kale u buu yahay idin malihi laakiin way ku yaalaan wayna shaqeeyaan marka xukuumaddu waxay ajandaheeda waxay xoog saartay qaybtan kale ee secondary health care loo yaqaan ama isbitaalada referralka in kor loo soo qaado maadaama ay iyagu dib u dhaceen oo isbitaaladii hay'aduhuna aanay gacanta ku hayn dawladdiina budget fara badan oo lagu bixiyo aynan weli haysan isbitaaladu runtii hoos bay u dhaceen muddooyinkii la soo dhaafay marka xooga waxa la saaray horta isbitaalada waaweyn ee loo yaqaan regional hospitaleska
ama ka gaalkacyo ha ahaado qardha ha ahaado baran ha ahaado ma garanaysaa buuhoodle ha ahaado boosaaso in cusbitaalada waaweyn kor loo soo qaado hawshaa weeye hawsha aan u soconnaa maanta in cusbitaalada ku yaala puntland in tayadooda kor loo soo qaado wax sahla ma aha cusbitaalada waad garanaysaa waaweyn managementigooda iyo budgetkooda iyo hawsha ku jirta cusbitaalada wax sahlan ma aha wadamadan reer galbeedkaba tvda haddaad daawataan maalin kasta ka murma caafimaadka see loo horumaraya ayaa xaggay garanaysaa laga hagaajiya innaga oo dee dawlad aan weli budgetkeedu ku filayna dee iska badaa marka hawshaas waxaa loo baahan yahay in qof kasta oo ka qayb qaadan karaa uu ka qayb qaato waxaa loo baahan yahay dhakhaatiirta ku nool Yurub Finland oo runtii aan rabo jaaliyadda Finland inaan aad ugu hambaliyeeyo sida ay xoog u saarayaan waxbarashada iyo inay dhalinyaradu ay wax bartaan waxaa loo baahan yahay inay wadankii ku noqdaan hadday si toos ugu noqon kari waayaan fasaxyada ay tagaan oo ay ka soo shaqeeyaan cusbitaalada intay joogaan ay u faa'iideeyaan dadka bahda caafimaadka ee iyagu aan u yeelan chance u yeelan inay banaanka u soo baxaan oo soo arkaan wax kale oo waxooda ka duwan inay u yimaadaan oo ay ku soo kordhiyaan experience ama xirfad ay ku soo kordhiyaan waa loo baahan yahay programmada aan hadda u soconno oo aan kala shaqayn doono jaaliyadda iyo akhyaarta kale aan is aragnay waxa ugu muhiimsan waxa weeye sidii aanu dadka dhalinyaradaas oo kale wax baratay inaanu wadankii ku celinno oo ay uga faa'iideeyaan dhakhtarada iyo caafimaadka ay u faa'iideeyaan annagoo raacayna nidaam ay macquula oo dhaqaale ahaan iyo maganaysaa shaqo ahaanba dee ay isku filan yihiin intaas markaan ka baxo keliya waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo annagu waxaanu ka nimi puntland waxaanu ka nimi runtii dad isku duuban garanaya meesha caqabadaha haysta garanaya ayaanu ka nimi xukuumad isku duuban baanu ka nimi waxaan rajaynayaa idinkuna inaad noqotaan jaaliyad isku duuban inaad jaaliyad isku duuban noqotaan baan rajaynayaa anigu lafteeda qurbo joog baan ahaan jiray marmarka qaarkood waa dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira iyo wixii aan soo maray iyo civil warradu jaaliyaduhu de kama talaala oo immune kama aha waa iska dhacda mararka qaarkood jaaliyadaha laftooda in wax iska dhex maraan waxaan kula dardaarmayaa inaad isku meel uga soo wada jeesataan halkan idinka haysata iyo xagga idinka horeysaba intaasaan kusoo gabagabeynayaa waan isla joognaa ayaamahan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wali waxaan ku gudub jirnaa soo dhabeynta loo sameeyay wasiirka caafimaadka ee maamul goboleedka Puntland waxa garabkayga bidix markaana taagan Hanad Boqor Cabdullaahi hanad ku soo dhawo barnaamijka soo dhabeynta khaaska ee loo sameeyay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac waa mahadsantahay walaal Cabdiraxmaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa interviewgan gaaban runtii sidaa sheegtay waxaa booqasho gaaban oo safar noogu yimid dalka Finland wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ka soo kici tamay dalka Ingiriiska runtii sharaf bay noo ahayd soo dhaweynta wasiirka iyo inuu xogna la wadaago horumarka iyo caqabadaha ka jira dalka sidaad ogsoon tihiin dalkan Finland wuxuu ka mid yahay dalalka horumarsan xaqiijiya waxyaabaha asaasiga ah bini'aadinka sida caafimaadka waxbarashada runtii haddaanu nahay anagu jaaliyadda Puntland ee Finland waxaa sharaf inoo ah inuu wasiirka noo yimaado uu nala wadaago xog fiican annaguna mataqaanaa nagu dhiirigeliyo inaynu wadanka ku celinno wixii aqoon ah iyo wixii taakuleyn ah si aynu mataqaanaa horumarka iyo dib u dhiska dalka shaqeyn insha Allah wasiirka inta hadda dalka uu ku sugnaa ma jira kulamo uu la sameeyay dawladda Finland iyo hay'adaha madaxa banaan ha runtii ujeedada uu yimi wasiirka waxa ka mid ahayd inuu xiriir la sameeyo oo casuumaad ka helay jaaliyadda Puntland ee dalka Finland iyo sidoo kale inuu xiriir la sameeyo iyo wada shaqeyn hay'adaha madaxa banaan iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda oo ka mid ah oo deeq bixiyaasha ka mid ah Soomaaliya mucaawanada geeya iyo sidoo kale Puntland
insha allahu wuxuu maanta la kulmay wasiirka hay-adda IOM-ta iyo sidoo kale hay-adda diaconia insha allahu berrina wuxuu kulamo la yeelan doonaa ururo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiisyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo ulajeedada ay tahay inuu la sameeyo wada shaqayn iyo isbarasho uu la sameeyo xiriir hay-adahaas dowliga ah iyo kuwaan dowliga ahayn annagu haddaanu nahay jaaliyadda puntland iyo waxgaradka kale soomaaliyeed waxaan ka shaqeynay inaanu suurtagelino kulamadaas wasiirka socdaalkan uu ku yimid dalka Finland ma socdaalka ugu horeeyay uu wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Puntland uu ku yimaado tan xigta wasiirka socdaalkan ma Finland kaliya ayay ku kooban tahay mise waxa uu ku mari doonaa wadamadan reer galbeedka waa mahadsan tahay mar labaad cabdiraxmaan wasiirka hadda wuxuu ka yimid dalka ingiriiska waana booqashadii ugu horreysay uu ku yimaado dalka Finland annaguna sidoo kale waxay noo tahay booqashadii ugu horreysay uu wasiir caafimaad oo Puntland noogu yimaado dalka Finland runtii wuxuu dib ugu laaban doonaa safarkan ka bacdi dalka ingiriiska isagoo ay qorshaysan inuu meelo kale maro laakiin si fiican ugama warhayno timetable-kiisa waxay la tahay inuu isaga ay ku fiican tahay inaad weydiiso insha allah su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayo wasiirka hay-adaha oo la kulmay ma jiray hay-adaha xuquuqul insaanka quseeya ka hadlaysa arrimaha kufsiga iyo wixii la mid runtii haddeer hay-adaha uu la kulmayo ma ahayn kuwa xuquuqul insaanka ku taxalluqa kaliya waxay ahaayeen kuwa arrimaha bulshada una badan dhanka caafimaadka iyo sidii caafimaadka wax looga qaban lahaa laakiin kulamadii uu la qaatay jaaliyadda Puntland ayaa lasoo hadal qaaday arrimaha aafada iyo dhibaatooyinka kufsiga uu ku hayo deegaanada Puntland arrintaas uu naga siiyey xog fiican dadka reer Puntland iyo jaaliyaddana ay walaac badan ka muujiyeen ayna siiyeen talooyin iyo mataqaanaa in arrimahaas si degdeg ah wax looga qabto aad baad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرست waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan bahda saxaafadda waraysiga kan shortiga quruxda badan naga qaaday horena nooga duubay barnaamijka dhan noo daadihinaya aad baad ugu mahadsantihiin marka kale waxaan u mahadcelinayaa xubnihii jaaliyadda oo si fiican u soo wada dhaweeyay ee ugu horeeyaan guddiga qabanqaabada iyo sidii quruxda badnayd ee u dhacday aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda Puntland ee waddanka Finland iyo ummadda Soomaaliyeed oo nagala qayb qaadatay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka Puntland wasiirkaas oo safarkiisa shaqo ugu horeeyay oo waddanka reer galbeedka ku yimaado naga bilaabay Finland taas waxay cadeynaysaa Finland dhinaca caafimaadka priority-ga iyo sida fiican oo loo danaynayo Puntland u danaynayso iyaduna ay u danaynayso Puntland maadaama uu caasimad official uu ka helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo hay'adda IOM-ta oo Finland iyo hay'adda diaconia iyo hay'adda Finnish Network dhammaan uu ka helay macnaha caasimad maadaama ay intaas oo dhan ay ka shaqeeyaan barnaamij caafimaadka ah oo Soomaaliya gudihiisa ka socda iyo barnaamij dhiraynta ah maadaama labada barnaamij ay Finland fangarayso sanadkii dhaweyd hadeer bishii la soo dhaafay Ramadaanka gudihiisa wasiirka waxaanu ku kulanay Garowe annagoo barnaamijka caafimaadka wadna maadaama wasiirka uu yahay wasaaradda caafimaadka wasiirkeedii haddii aanu kulanay wasiirku si fiican buu noo qaabilay wuxuuna nala qaatay inuu Finland yimaado maadaama howlo caafimaadka ee Finland ka wado Soomaaliya ayna diyaar u tahay inay sii hormariso sidii loo sii ballaariyo oo waxyaalo badan oo awal hore Finland ma uga socdo intii dawladdii hore ay jirtay istaagay haddana inuu gadaal uga furfuro barnaamijkaas oo IOM-tu ay waday sidaas daraaddeed buu wuxuu ku yimi wasiirku halakan hawshiisina saan filan meelihii dhammaan uu la kulmay si fiicanna way isku afgarteen waana ku qanceen sida professionalka ah uu baahida Puntland u soo jeediyay aad baan uga mahadcelinaynaa waxaana filaynaa inay dhammaan wixii hore u socdayna sii socdaan wax kale oo ka sii badanna inay noo yimaadaan insha Allah
kulankii aad wada yeelateen jaaliyadda iyo wasiirka waxyaabaha inta badan la isku soo hadal qaaday ay ka wada hadleen jaaliyadda iyo wasiirka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah jaaliyaddu halkan inay warbixin ka siiso waddankan iyo howlaha ay ka wado iyo waddankii waxyaalaha ay ka qabato isaguna wuxuu warbixin naga siiyey dowladdan cusub uu isagu haddeer ka tirsan yahay barnaamijkeeda iyo siday wax u wado iyo siday waddanka wax uga qabanayso warbixin fiican markaanu kala helnay waanu ku qanacnay barnaamijka dowladdan iyo siday wax u wadaan intaas baan iska waraysanay jaaliyadda iyo sidii aan wax u wada qaban lahayn dadka halkan ay aqoontooda iyo cilmigooda iyo waxooda dalka u geyn lahaayeen dalkiina macnaa ugu noqon lahaayeen jaaliyadda Puntland ma jirtaa qorsho ay wado ay ugu talagashay maamulka Puntland ay doonayso inay si degdeg ah ay ku gaarsiiyaan gurmad ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka isgaarsiinta waa mahadsantahay cabdiraxmaan walaal jaaliyadda Puntland ee Finland wixii karaankeeda ah way ka wadaa haddaba dalkii waa ka wadaa haddaba wasaaradda caafimaadka waa ka shaqeeyaan oo dhinaca IT-ga iyo waxa waa joogaan madaxtooyada nafsadeeda way joogaan rag ka tirsan jaaliyadda jaamacadaha ruuxadeeda way joogaan waxay kaloo jaaliyadda Finland halkan u soo sameysay barnaamij lagu tababarayo dad macnaa caafimaad ka shaqeeya ay jaamacadda 20 arday ee lacagta ka bixiso jaamacadaha Finland ay ku xiran yihiin oo online-ka ay ka bartaan moodalka waxay kale oo wadaa inay jaamacadaha Soomaaliya localka jaamacadda East Africa University macallimiin kamid ah inay mushahar siiso barnaamijka dhiga hawlo badan MCHyo ilaa 20 gaaraya ilaa 30 gaaraya bay sanadkiiba ka shaqeysaa jaaliyadda Puntland horena waa ugu qorsheysanayd inay dalkii wax ka qabato haddana waa sii xoojinaysaa maadaama ay heshay macnaa dawlad u sii fududaynayso oo priority-gana la fahmaysa macnaa ay leedahay wax qabadka arrimaha bulshada oo ama ha noqoto caafimaadka ama ha noqoto environment-ga labadaas issue macnaa xoog baan wax uga qabanaa waxaan rajaynaynaa macnaha waxyaalahan kale oo soo kordha ruuxadeeda oo ama boonda biyo gooysay ama abaara dhacay dhammaan waa ka qayb qaadanaa haddee welito hawshu sideediiba u sii socon doontaa insha allahu haddana waa ku mahadsantahay macnaha aqoon-yahanada reer Puntland ee ku nool dalkan Finland wasiirka ma idinkaga warbixiyay fursadaha u banaan aqoon-yahanada reer Puntland ee ku nool dalka Finland ee jaamacadaha ka soo wada baxay fursad caynkee ah ayaa u banaan ayuu yiri wasiirka caafimaadka waad ku mahadsantahay cabdiraxmaan walaal su'aashaada arrintaas waa barnaamijka ugu weyn oo yimaado OMTA barnaamijkaas macnaha qof walba oo Soomaaliya oo waddanka gudihiisa meelaha wax u bartay oo shahaado haysta wuxuu u shaqeyn karaa dawladda Puntland ay mushaharka ku siinaysaa isagoo dalkiisa joogo dadkiisa u faa'iideynaya oo wuxuu bartayna uga shaqeynayo meeshaana ku qaadanayo mushahar fiican sidaas Puntland waa u socotay laakiin nasiib darro waa gooday hadda sanadii ugu dambeysay iyadoo oo dawladdii hore iyo macnaha Finland xaggan oo ay isfahmi waa ay ka dhacday haddana arrintii fursadaas u bannaan macnaha dadka halkan oo Finland haddana waa arrimaha ugu yimaad arrimaha waaweyn bay ka mid tahay oo ah qof walba oo halkan macnaha aqoon-yahana oo Soomaaliyeed oo meel walba ka yimi ama ajaanib ha ahaadee inuu ka shaqeyn karo isbitaalada Puntland inuu qaybta ICT-ga ka shaqeyn karo inuu wasaaradaha macnaha wuxuu bartay uu ku kordhin karo Finland ay mushaharka siinayso arrintaas buu haddeer macnaha opportunity-gaas u bannaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed dalkoodina inay caawiyaan halkana macnaha intay ku qaadan lahaayeen ay dalkooda ku qaataan ummadooda inay wax u qabtaan Finland ay ogoshahay intaas way